هل يميرات كتاي وكاي وضنات وكاي وكاي بلاد كتاي وكاي وضنات وكاي وكاي بلاد كتاي دلكاغا 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 لغا هلا دلكاغا 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 لغا هلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد داود ayaa ku soo dhawaada barnaamijkii hadahan oo kale aad uga barateen TV-ga True Cable ee ahaa magaciisu baro oo ku dayo muwaadinkaaga danta guud wax weyn ka soo qabtay rubco qarnigii tagay ku dayashada mudan marka la soo gaabiyana la yiraahdo baro oo ku dayo halyeeyada iyo dadkii wadankan intii la soo galay wax ka qabtay danta guud ee laga haajiray iyagu dib ugu haajiray oo wax ka qabtay oo aaminsan in danta guud haddii laga wada shaqeeyo tagaarkuna ay hagaagayso markaa sidaasay ku dayasho ay u noqdeen iigu marti ah haliyey Ibraahim Cali Xasan oo degmada Gabiley iga soo jirmaaday saaka waqtigii hore Ibraahim wixii aan ku soo dooranay waxa kamid ah maaragtay arrimaha bulshada maaragtay dadka jilicsan ayuu aad iyo aad maaragtay ugu gargaaraa marka Ibraahim ku soo dhawow barnaamijka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaye Ibraahim miyaad noo sheegi kartaa waqtigii dhalatay xaggaad ku dhalatay iyo xaggaad ku soo barbaartay waxaan ku dhashay horta anigu wanigi kuu sheegay kowdhe inaan ku celiyana ma jecli waayo waxbaan eegaya okay kolkaa waxaan ku barbaaray maxaan ku raahdaa anigu Jabuuti haye oo aan yaraan ku tagay haye kolkaa 10 jir baan ku tagay Jabuuti haye iskooladan ka galay haye halkaa Jabuuti meel Cali Sabiix la yiraahdo ayaan ka galay haye markaa dabeetana Jabuuti iskoolada ka dhigan jiray haye markaa waxa laga jeeday Carabi lama dhigi jirin Faransiis baa lagu bar jiray wax haye luqadda labaadna English bay ilaa aakhirkii aan dhoofayoon markan ka dhoofay aan tagay maxaan ku raad Tunis oo beeraha 4 sano aan ka baranay marka dalka Tunisia lagu diray oo aad beeraha ka soo baranay beeraha ka soo bartay marka diploma soo qaatay haye marka deetana Djibouti ku soo noqday haye Djibouti deeto maxaan ku raadayay aan ka bilaabay shaqo aan u shaqeeyo beeriba uma weecan waxaan u wacday airline-kii diyaaradihii marka diyaaradii Air France baa jirtay marka waqtibay ku beegan tahay 74-kii ayay ku beegan tahay Air France u shaqeeyay Air France baan u shaqeeyay 17 sanadood iyo 17 cisho waxaan ka shaqeyn jiray kuwan load sheet-ka iyo trim sheet-ka iyo balance sheet-ka iyo waxa hadaad ugu sheegto waxaan ku miisaanka diyaaradda sameeya iyo diyaaradda rakaabka loo kala dhigayo business class iyo economy class iyo tourist class iyo annaga amar siinayno intaas halka fariiso miisaanka diyaaradda waa laba kafadood oo duulayo miisaanka iyo kala marka haddii kafadan dambe aad saarto miisaan diyaaradda dabada dhulka ku dhufanaysa haddaad hore saartaan afka dhulka ku dhufanaysa marka repartition wanaagsan inaad samayso weey oo isku dheelitirto diyaaradda markaasaan diyaaradda inta kursi ee saaran iyo telegasya dirayna computerada kolkaa ma jirin telegasya jiri jiray telegasad ku sheegaysaa message departure message iyo arrival message iyo loading message rarkii diyaaradda yaad khanka hore waxaa saaran khanka dhexe intana saaran afar khan bay leedo midba waxba de ku sheegaysaa wixii saaran kuraasida intaas waa first class intaas economy class intaas tourist class ayaad u sheegaysaa macluumaadkii diyaaradda ku kacaysay oo dhan baad sheegaysaa xitaa waxaad sameynaysaa shidaalkii lagu shubay baad sheegaysaa mathematics xitaa sheegaysaa in diyaaraddu baadad kasta ka dhigaysto yaad xitaa sheegaysaa kolkay kacaysay kolkay fadhiisanayso waa mathematics yaad ka xisaab baa lagu dejinaya waayahay haliyey Ibraahim adigoo beerihii soo bartay ayaa dadku isweydiin karaya maxaa ku leexiyay diyaaradda
shuqul baan ku waayay oo xagga Djibouti beeraan jirin ha okay marka itixaan baan u galo dee waa korkad camal weydo dee weeshii shuqul ka jiraba marka dawladii ku dirtay ilaa dawladii Djibouti baa marka dee ku dirtay inay dirin adeerkay baa diray Allah adeerka baa ku diray oo ku yiri beeraha soo baro adu ma dalbatay adu ma dalban horta kolkii hore diyaarad soo baranaysa baa leeyahay ku tagay kolkan halkii tagnaa ma jiraan baan leeyahay waa min xadarasiya bilaashan la siiyay ona lacag ka bixinay oo dawladda Tunis baan biirin jirtay tacliintana noo furtay dee waxa tiri Afriki waxa cuntada u baahan tahay beerahan bart dee maxaan ku diiday waddanka gaajana waan ka tagnay waan iska baran waayahay markii aad ka soo shaqaysay diyaaradda ay 17 sano u shaqaynaysay haddana haddana xorriyad baan helnay Djibouti xorriyad baa qaadatay markaan xorriyadii helnay dee dabeeto haddana Air Djibouti baa bilaabantay oo kolkii hore Air France iska lahayd oo dawladdii baa la wareegtay Air Djibouti baa dee tiri Faransiiskii wixii mutacalimiin wax garanay annaga qaadanayna idinku dawlad weyn baa tiinay dadkii la qaataa la igu daray haddana Air Djibouti baa iska yara kacday haddana civil airport ayaa yidhi kan inaga tegi maayo ay qaatay ilaa retreat ka gaadhay okay ma fahamteena marka haddii biilma iyada beertii dib ugu noqotay oo reer gabiilay beer lagama waayaye adigoo shaqeynaya beertii ma ku lug lahayd oo hayo beer baan ka qabsay meel bohol ahayd oo iskoolkan qalaxee secondary gabiilay inaad maqasheen kale mooyaane meel boholaba ahayd oo beer ba ahayn ayaan bildoosir geliyo kharash gareeyay intii aan karayaan isku dumiyay ceelna waan ka qodo biyaan ka helay aqalaan ka dhisay ma fahamtay dee dabeetana halkaasaan shaqadaydii iska rogo yar baan iibsaday oon digada ugu guro beer soo bartay baan ahay deetana halkaasaan beer ka bilaabay dee waa kaa marka imika wax soo saarka ayaad u heelan tahay ayaan u heelanahay geel yarna waan ku dhaqay oo waan 12 halaad ilaa 16 geela imika ii jooga caanahoodana badhna waan iibiyaa badhna waan cabnaa dee saasaan waxu wadnaa dukaan yarna waan ku leeyahay oo bay amshari baanu galnay aniga ina kaloona saaxiibna sharaxanahay marka Halye Ibrahim hawshan lagu soo doortay ee arrimaha bulshada bal wax nooga sheeg sidaan ku bilowday idiba aniga ima dooran anaga ku dooranay ilaahay bay doortay ilaahay baa ku doortay anagana isagu ma nagu soo kaalay waa sidaa horta waxaan imi gabiilayo kolkaa maxaan ku idhahdaa waan noqday 2002 iyaan intaanan duulin unbay gabadhi agteeda ku dhimatay markaasun baa gabadhayda igu tidhi Ibrahim oo markaan soo basaasay gabadhaasi gaajay u dhimatay dabeetana France baan tegay magaalada Paris adanaha kale u tagtay dana kale aan tegay kolkaa dabeeto markaan halkaa joogo baan hurdadii gabadhii hortimi markaasaan gaajay ku dhimatay gabadheedan maxaad iigu sheegi weyday dee anba kolka dhimato ma la ii sheegay kolkaa dabeeto markaasaan ilaahay bariyey ilaahay baan ilaahay rabbigaada weyn oo waaxid wax dadkaas gaajada kaga baxaan ilaahay oo bar de kolka dad badan oo waalanna waan arkay oo iska gaajoonaya in shuqul ma jiro wadankii waqti ma dadka 2002 marka habeenada kamid ilaahay soo mariyay oo maxay Faransiiska ka soo noqotay waan joogaa weli xaggaasad weli joogtaa Paris baan joogaa okay ayuunba ilaahay soo mariyay oo dadku koob shaaha weeyaane ma kun ku shilin iyo iska ururin la'yiin unba ilaahay soo mariyay ma ku shilinte kada kolkaas ma hadana igu soo dhacday soo kuwan dadka Etoobiyaanka ee Etoobiya ka yimiba kun wax ka badan siinaya dukaamadu dadkii wada hortaagay ay ku sadaqadaysanayaan ay kala xishoonayaan 500 kun ku dhiibayaan dadka iyagu ka abuurmeen ee ka dhasheen iyo dalkooga dee maxay ugu diidayaan hadana niyadeedii ku soo dhacday kolka dabeeto waan sii waday hadana wuxuu baa qalbiga ku soo dhacay إن إلهي بقلبي كنت تكرفها مقلب القلوب والأبصار كل واحد بقى صار عضي وأنت حفيظ فرطه حفيظ أنت تفرطه ما مجاعي وبحس إذا حفيظ كان كون كشينين كأنا مجاعي بانو بحيه كون كشينين كأنا كون كشينين كأنا وودني كي كواد باني كي إذا أنا تاكسي بان وضع ما تكان بالله ما هلا هالكا قاتنا
kun ka shilin loo doonaan u bixiyey loo doone haa haye waa wadanigii labaad haye midna waxaan u bixiyey kun ka shilin mahele mahale haa haye dee ilaahay lama xukume waa qadar ilaahay waaba dadka loo dadaalayo ee baahan waayahay kii afraadna waxaan u bixiyey kun ka shilin hele ma ogolaade okay ya laba cisho lagu xidhaan laakiin cid xidhaysaaba ma jirto oo dee dad adag weli ma nihin iyo dowlad adag toona marka anoo fikraddaa qaba marka xafiiskii baad bilowday maya waan imi horta imi France waan joogay marka waxaan hindisayay aad wax hindisaysa waa qorshihii dee waan ku soo noqday gabiile dee gabiile kolkaan imi ayaan rag dee u yeedhay marka nin muhiima oo aanu saaxiib ahayn oonu reer wajaalaan ahayn wajaale isku naqaanay oo aadan cabdilaahi xayd la yidhaa ayaa nin odaya oo dee diin laho sharaf laho dee yani si walba u wanaagsan kolkan eegay oona kolkaa aqoonin ayuu ii geeyey oo la yidhahda xuseen xasan gaboobe la yidhaa ayuu ii geeyey markaasa ninkan mutacaliman sharafna aan ku aqaanay ninkan wax ila wade markaan u sheegay dee hindisahayga dee ninkii isagoon iba garanayn sidii la sheegay weeyo ayuu aqalkii ii gogolay waxaanaynaga inaan tuugayna beenaalahay waruma hayo dee bal ninkan waa nin odaya waxaan wada kolna xumaani ma jirtay bal hadda la eeg buu yidhi xaaskiisii aqalkiisii wuu noo gogolay dhallinyartii baan soo ururiyey waxaasaan wadaa baan idhi dee waa layga guray dee waxaa idhi waaro dadkeenu u dareenyeysan yahay kun ku shilin nimaan bixin karayn malihine aan kun ku shilin bixinno oon iska ururino dee waa yahay baa layidhi marka inta badani way wanaagsan tahay dadkaa waa yahay leh laakiin midmid waxaa ku jira deele talowkani kunbuu soo wadaaye dee afkana ka sheegi maayo malaa $100 buu kani ku socda hadhowna waa yahay dadku isku aragti maa dad marka waxaanu wadnaba arrinkii baanu isla qaadan waxaa la yidhi haddaba aqal baa la kirayne dee yaa bixinaya marka ma wajaalaad joogtaa maya gabiile baanu joognaa gabiile baanu joognaa halkaanu ku shirayna waa gabiile markaa dabeeto ninkii xuseen xasan gaboobe iyo nin kaleu isagu garanayo u yeedhay ayaa bilodhan u soo jeeda oo xeer noo sameeyey xeerka aanu kolkaa kuma jirin iyagaa sameynayay kolkaa dabeeto xeerkii kolkay sameeyeen xeerkuna markaa muxuu ahaa ma xeerka si aan dadka wax uga qaadayno aan ugu dhaqmayno xeer aad ku samaysateen oo aad u hogaansamaysaan hawakaa annagu hogaansamayno sidaanu dhaqaalaha oo sharciya iyo sidaanu dowladda u weydiisan lahayn de inaanu waxyirgelinno yaanu wadnaa waayahay kolkaa dabeeto markaanu xeerkii dhammaynay ayaa la yidhi dee waya inaanu maqsin kiraysano weeye dee tana maqsinkiibaayoo kolkaasaan dee markaa gabiil maqsinka waxaaba lagu koran jiray $100 boqolka waxaan u jeedaa $100 markaasaan $100 bixiyey boqolkii dollar kolkaa $1,200 buu ahaa marka waaba 12 bilood tiradeed markaa inamadiina waxbay keenkeenoo ninba waxbuu keeno inamo fiican bay ahaayeen oo kuraasi iyo wax gogol iyo waxbaa la keeno maqsin baanu kireen wadadan tagta wajaale oo sibiraysan ka horjeeda yaanu kireen dabeetana haddana waxaa la yidhi dee qofkii kunka shilin laga qaaday si uu xisaabtamo in la xadayo moodine tigidha waa in la siiyo rasiid inuu helo haddana $80 baan bixiyey halkana imaa kumayaal rasiidoo yaryar yaan ka qaaday waan geeyey halkii markaanu bilownay iyo dee dad xaasidiini dowladdii nagu direen lookalkiibay tageen oo bale rag cashuur qaadaya ayaa soo baxo dowlad baaba idinka hoos dhalatay ya marka anu waan dhoofo haddana France baan ku noqday inamadii baa loo yeedhay nabadeed waa maxay waxaanad wadaa inamaduna inamadu bay mushtariyo sharaf lahoo fiican oon baahnaynba baahi wax la yidhaha baanay garab marin inamadii baa la hadloo dee tolkiin baano dadkiinii baan nahaye dowladdii baa tiinay haddaan wax xumaynayno dee naqabta cidna nagu darsada haddii aanu se dadka yaga waanu ka damqanin waxaan waa ehelka yagii oo dadka yagii aanu dadka yaga wax u gurayno oo hagaajinayno inta jilicsan inta naga jilicsan ee baahan dee maxaad nagu haysatiin dee gar baa loo arkay kolkaasaa dee layska daayay shaqadiina wata iska wata ninkii maayarkii markaa joogay markaasaa dabeeta maxaan ku idhaahdaa ayaanu halkii nalaga wada baxay 6 qof baanu ka soo hadhay 6 qof ya
وتصور نقطة ما هذه أنا مقبل ما هي أيا أنا نصاحب معي إسماعيل إسمان أحمد غيره وأنا تكان شركاء كنا هاي أيا دحدين كجوري جري دحدين أنتوا هنا يراو شقيات درو أيو كجوري جري markaasaan waxaan ururinay waxaan soo noqday isaga ururiyay 12 milyan oo shilin ayaad u timid haye markaa hortay bay sameeyeen 1,500,000 wadada wajaale tagtay meel dekada googooday 1,500,000 bay ku sameeyeen haye miskiin halka aan galaagteedana oo dumayna 1,500,000 shilin bay siiyeen waayahay iyagoo haddana 12 milyan haya yaanu nimi haye 12 milyan baan kulkii shilineed ururiyeen ay halka gaadhay markaasaan dabeeto qaadnay oo dhakhtarkii baan u tagnay dhakhtarkii gabiilay dhakhtarkii baa inagu yiraahdeen maxay idin ka dhimaan baan nidho halkan dumarku markay ku umulaan wax dhiiga lagaga maydho lama hayay yiraahdeen haddana baambad baa dhakhtarka gudihiisa baambadii baan kuulu yeernayoo waanu jeexno qandaraas baanu bixinay deetana waxaanu soo iibinay qasaab ma fahamtay taangigan biyihii waaba yaalaano baambad baa baambadii qasaabaad kaloo ka baxa inaanu biyi kasii qaadnaanu doono dee kuuli baanu u yeedhno qandaraas baanu bixinayoo mitirkiiba intaasoo doolaro waanu jeexnay marka aqalkii dumarka lagaga umurinayay dusheeda caag yar baa saaran oo dawladdu ay saartay caagaa yaroo biyaha dee lagu shubo oo taangi yar ah markaa taangi baan 5 foosta aanu tumaalada ka tunnay ayaanu ka samayn dabeetana waanu hoos dhignay laba daynabana halkan aanu ka qaadno mid baanu biyihii baanu dusha saarnay dee kolkaa biyisi ay usoo dhaadhacaan oo daynabadaas u saarto dee dumarkii baa sidii ku reeyey marka intii la arkay una caashkeedii baa la yidhi haddana halkan ragga marka lagu qalo dee wax dhiigga lagaga maydhaan ma jirto intii in leeg baanu haddana gelin waxaad wax ku maamulaysaa 12 milyan markaanu dhammaynayba haddana la yidhi mijarooro ma lehee mijarooro nagu sameeya halkan dhakhtarku haddana tumaalaanu inuu jiingadaanu soo iibino mijarooradii baanu samayn taangi weyn iyo 10 foostay dawladdu dhulka dhigtay ayaa la yidhi haddana uu naga daxalaysane jaajuur hoos dhigoo sare u qaada haddana waanu qaaday markaa annagoo intaa marayna oo awood kale aan lahayn ayaa ina yaroo imika maayar noqday oo la yidhaha maxamed amiin cumar oo maayar gabiile ka ah ayaa isna tijaarta marayoo wuxuu soo ururiyey $500 oo makiinad lagu kashifo caloosha dumarka waxa ku jira ayuu soo iibiyey iskaanka yidhaahdaan kolkaa kaasaa jaraa'idkiina soo kaxeeyey meeshana dadkiina isugu yeedhay khudbadu jeedinayay khudbadii dhameeyey waxaasaan qabtay yidhi yaanu anana ka daba hadalnay annagu 6 nin baanu nahoo 12 milyan baanu ururinoo dee dhakhtarkaanu sida ay saa ugu samayn markay dadkii yaabeen 6 ninna waanu nay 12 milyanna waanu ururinay way yaabeen dadkii waarina ku waa lacag bay yidhaahdeen markaa dabeeto 2 bilood oo ka dambeysay ayaa dabeeto aanu dadkii ka soo ururinay haddana bilba 4 milyan وستيد مليون وشيني مدرك مركا واليني برتي وانا لبرت واحد كان وداد عامله دad kan ku shil wax kasay lix qof waxaana sameeyay magac miya la haydeen marka ha samakaal baan la oran jiray samakaal baan la bax kanu dastuurka iyaga sameeysanay samakaal baan la yani samahay u gargaara dabeetana culimadii baa kacdo tiri xabaali la isku aasayay way buuxsameen hadeen heer gabiilaynahay meel la isku aaso waynu iibina meeshii baa la yidhi waa 14 milyan baa la siinaya aqal laga dhisay iyo qalab iyo kana 3 yani $14,000 iyo aqal yar oo $3,000 iyo qalabkii oo dhammaan $17,000 baa la yidhi tii baanu annagu kolkii wax gabiilayde oo maar waxba bixiyay dawladuna waxba bixisay kolkaa dabeeto annagu haddaan samakaal wax maanu haynay inna anagan 8 milyan haynayna 8 milyan haynay ayaanu horta $1,000 ka bixinay annaga jeebka iyaga mid 100 bixiyo mid 2 bixiyo mid 50 bixiyaba intii samakaal ahayd $1,000 kala jeebka iyaga ka bixinay $2,000 baanu dabeeto ku dar kasi hadda dawladii fajacad waxay nimankan
kunka shilin wax ka sameynaya wadadii dawladdu mari wadadii kala beer ka tagaysana sameynaya masaajidada caawinaya xabaali lacagtan xagga ka keenta marka nin ma yaraayo Axmed la oran jiray ayaa halka yiri waxa idin aqoonsaday horumarka gabiilay inaan noqotaan haddaad sidaa tahay nacaawi baan nidhi $1,500 ayuu na siiyey nin ida gala ahaayo ministerka caafimaadka ahaa magaciisii baan iloobay oo nin fiican ahaan una gacan qabtay $18,000 ayuu noo shubay xagga dawladda ministerka caafimaadka ahaa kolkaa dee dabeetana kolkaasaanu maayarkii ku nidhi waayo haddaad sidaa noo jeceshahay waxaad na siisaa 9 balood 9 balood na sii halkan dhakhtarka naga sii way yaalaan maxay idin ka samayn waxaanu ka samayn dhakhtarka dadka waalan baan magaalada Gabiil tira koobnay 150 baan magaalada quro ka waalan iska daa gobolka oo dhano markaasaanu yaabnay $18,000 iyo $1,400 ayaanu seeskii ku dhignay kuna kicin dhakhtarkii ya 9 balood oo niistii iyo sibirkii iyo dhagaxii iyo biyihii dee wixii aan ku samayn markaasaan aanu France tagay markaan France tagay magaalada Lyon la yiraahdo deganahay markaa magaalada Lyon baa waxa yimi nin la yiraahdo Geeljire oo ministerka xeebaha ah Soomaaliland ayaa yimi markaasaanu kii aqal u kirayn waa ministerkeennii dee aan soo dhaweyno aan wareysano dee macaan iyo wax la cabiyo sharaabna waanu keen 4 saac iyo barbaanu halkii dee daljacayl ayaa lagu wareysanayay kolkii daljacaylkii dhammaaday yaan aanu meeshii dee ka kacay waxaan Gabiilay Soomaaliland bay ka mid tahay waxaanu bilownay meel dhakhtarka dhimirka ah intaasoo qof oo waalan baa magaalada gudaheeda ah seeskii waanu dhignay gidaaradiina waanu kicin dee waxaanu doonaynaa wixii Ilaahay garanaya dalkiisana jecelow 10 euro inaad nagu caawiso 10 euro lacagtii Yurub tahay ayaana inuu nagu caawiyo dee markaasaan halkii ka bilaabay markaasaa dee meel walba dal xilkasaa jooga markaasaan magaaladii maray oo aqal walba tegay oo kan oo kolkaasaa dee 10 euro ka 50 ka bixinaya ka 20 ka bixinaya ka 30 ka bixinaya on ka ururin fundraising baad samaysay anigoo €1,500 haya ayuu nin wanaagsan oo reer Gabiil oo Xasan Samatar la yiraahdo ka yimi magaalada Toulouse markuu waxaa maqlay wada isaaqa dadka odayaasha ah nin mutacallimna dee ninkii baa dhakeen lacagta hayso dee waanu dhiibay xaggii buu tagay wixii joogay halkaas dee waqooyiga ahaa ayuu yiri nin walba 50 euro keen 50 euro kii diidan wuxuu yiri anaa bixinay iska hayso ayuu oranayay €3,500 ayuu ka dhigay markaasaan dee u dir inankii madaxda ahaa ee samakaal xukumayay ninka la xukumo la yiraahdo Kiise Xaaji Muuse ayaanu madax ka dhigan si dhismihii loogu dhameystiro si dhismihii loo wado dee halkii bay ka bilaabantay dee markaasaan in kale oo la yiraahdo Ibrahim Cumar Ceelaawe na isna u dawarsaday oo kolku xitaa waxba waayay carabtii u dhaxgalay dad caynkaas oo waalan baan leedahay caawiyo islaam masaajidii ka kacay isna kolkan soo noqonayay 5,000 euro iyo 224 buu ii soo dhiibay soo u dadaalay tiina waanu keenay markaasaan dee meel walba u telefooniyay adduunka Washington New York Paris meel kasta oo Norway meel kasta Parisna ina reer Samataran sii maro isna keena masaajidadu ka doorsaysan lacag soo diray adu dabadii wax la wadaba waxa nooga yimi $100,000 Gabiilay iyo Omar iyo waxaan wadnaba dawlad waxaanu ka qaadnaba $250,000 ayay wixii isla tageen waayahay imika dhakhtarka dhimirka ee Soomaaliland iyo wax meel Soomaali ka hadashaba ugu weyn 4 qol weeye 4 qol oo hal loogu talagalay halka waalanun hay maqal walba waxa loogu talagalay qof gooniya loogu talagalay ma waxaan labaan u kala qaybino waxaan saarnay taangigii biyaha gidaarna waa noo dhaxaysanay rag iyo dumarka haye oo dumarkiina dhan baan u sameyn ragiina dhan baan u sameyn si aanay isugu tagin haye sirigana waan ku kala xidhnay haye
laba xafiis oo midna dhakhtarku fadhiisto midna dumarku quraacda iyo qadada iyo madbax looga sameeyana waanu samayn baytilmiyada dhulka lagu mariyana waanu samayn dee $250,000 wax dhisayaan baad garanaysa waan gartay markaa dabeeto markaa dhakhtarro ma hesheen saddex dhakhtar baanu helno bal markii ilaa saddexdiiba dhimirkay noqdeen oo reer Gabiley bay noqdeen okay marka dad wadanka gudihiisa wax ku bartay miyaa mise dibadda Ethiopia ku soo barteen walba 10 sanadood wax baranay dee kale oo magaalada u dhalatay caawina way ogolaadeen iyaguna ma fahant deemka waxa ka shaqeeya 26 qof baan mushaahar siinaa ururka samakaal oo markayga samakaal 26 qof oo dhakhtar iyo kaaliyaal iyo laba dhakhtar iyo laba neeris iyo dadka waalan u mayra iyo qaar dharka u mayra iyo qaar ilaaliye iyo dee wax kastaba qaar wax u kariya bale 26 qof yaan mushaahar siinaa marka raashin ma siisan dadka xidhan aroortii waxaanu siinaa quraacdii barqada waxa la siiyaa timir ما فهمتي ما دوركي قبدي بالصيا عصرك شاعنا بالصيا عشدي بالصيا دركي بالصيا هيلفكي بالله كان او dadku ugu tabarracaan dawooyinkiina waa bilaash koob shaana kama qaadno dee Washington ma jirto marka imika jooga saaka barad ka soo baxaysay imisa ku xidhan 300 kama yara 300 inta ku xidhan maaha inta ku xidhan waa 100 waxla laakiin dabadaha inta ku qaadata dawooyinka oo rag dhakhtarada naga yaqaan oo dhakhtaraan noo yimiyo jimciyada qorma ka dhaxaysan oo soo dirto waxay yahay 6 bilood wax ka badan ha ku haynina meesha way hadii kale idinkaaba waalaya okay markuu dhakhtarku eego sidoo caafimaadkiisa iraabka iyo kiniinka iyo hurdada iyo cuntada wax u tartay ee meesha kolka ka saara oo de hala qabsado bulshadii hala qabsado okay ya kolka ni waana baaba inta goon aan u wareystayo aan iska waran maxaa waramaabay naagu baa iga dhimanay haye de balga waran okay marka hal Ibrahim sidii baa kun shilin baad u urursaday la maanta marka kun shilin mustaqbalkan xitaa aan ugu maanteelin sidaas soo qura mustaqbal in future time European baanay dawladaha Yurub waxay ku dhisan yihiin waan ogaadeen cashuur tahay tax weeyaan dadka laga qaado oo quraado dusantiye ku leedahay koob shaadad cabto santiye ku leedahay te waxa dadka dawladnimadaba waxa weeyaan xukun kolka lagu leeyahay dadka xukuno dawladdu xaqay lacagta ka keenta waa jeebka dadka waa jeebka dadka tamaandada iyo basasha iyo caanaha iyo subaga iyo babayga bay cashuuraysa iyo baaburada iyo beeraha iyo maxaan ku yiraahdaa aqalada ninba wax ka qaadaysa dawladdu jeebka dadka wax ka keenta iyada wax ma leh marka dabeeto hadday sidaa tahay kuwa matalan lahayno dawlad aanu dadku wax bixinin dawladii dadku wali isma afkaran baan idhi baran ka qudbadeenay meesha waayo laba yaab baa jiro iska raacaya laba yaab shanqadhoodan maqlaya dawladdu yaabanta waxa leedahay dadkani maxay la shaqo tagilaynaad cashuur ka qaadiday ayay leedahay oo wax ugu qabatiday dadkiina waxay leeyihiin oo cashuur nagu filan way naga qaadaaye iyadun baa ku cashaysay muxuu waliba aqalka ugu hoosleelgilaaye faantaade labadan maan baa jira marka anigu horta dawladdan waaninaya marka fursada inteenan taa u gelin imika samakaab way dhisan tahay samakaab ma waa samakaal way dhisan tahay oo maamulkeedu wuu socdaa oo kun shilin waad ururisay waan ururinaa hay marka imika ahmiyadiina ugu weyn waa cusbitaalkaas ma imika waxaanu galnay haddana waxaa noo dirtay dawladdu noo dirtay $85,000 shaqo ku kacaysa ma fahantay xafiiska iyagu waa kan moogtay oo maxaan ku idhaahdaaye meelaanu imika bilownayo maxay tahayna waxa weeyaan iskoolkii qalax ayaa dadku qaadaya u dibinaya secondary iskoolkii meel kilomitir ku dhow iyo dadka ka soo galaya de awoodna lama leh lagu dhiso hadhowto de dabeeto waa kan ma fahantay haddana samakaal baa bilowday oo
kala bar baanu imanka maraynaa adigaa daawo sawirkiisii يعني بوحنتي maya gabyan baanu dhigaynaa قبيان waxa weeye waayirkan dhagaxa ku xidhan weeye dhagaxa ku xidhan horta intaan ciid gidaarkii ku tiirinay ayaanu haddana aanu kiraysanay bulldozer ayaanu haddana gabyankii iyo dhagaxii intaasoo 100 oo gabyana loodo dhagaxa iyo gabyankii oo isku gornay shaqada ka dhacaysa aad wad fahmaysaa baldo dhan la xidhay ka war okay ya marka iskuulkuna waa iskuulkii secondary schoolkii qalax ee muhiimka ahaa dadkii dad badan ka soo baxeen marka waa yahay haddii soo noqono muuminow ibraahimow hal ibraahim hadii biin maayo maalinta bilaabaysiiyo maanta maalinta ma arkaysay inaad hawshaada halkaa ay ku dambeynayso oo maaragtay haddii biin maayo ma sii arkaysay mise islaan gaajoodaysa unbaad aragto dabadeed bal horta dadkan wax ka qaba baad istiri fikirkaagu xaggaa maalinta joogiya maanta siduu kala yahay waaye haddaba anigu fiishankaygu aragtida inta way ka dheer tahayba waxaan damacsanaaba in gabiil ay aqal walow jiraba waxaan fahmay dowladnimadu inay tahay dadka xukun waxooda ka qaad laakiin ka daacadna oo wax ugu qabo inay tahay iskaga dul casheeyun inaanay ahayn inta tani minister baan ay dooro inta ku dul casheeyun maaha waa fikrad la kaalayo dadkaaga waxay hayaan ka qaad laakiin ka daacad noqon dib wax ugu qabo waxa laga arko waayahay xafiis ma fadhiisanaya hebel baa la yiraahdo ma hadde kolka waxaan anigu islahaa haddii dadkuna raacaan ay imanka ku tala jirtaa samakaal inaanu aqalada gabiile tira koobno inaanu aqal walba galno oo dadka aanan xukumine ikhtiyaarkooda aan u sii dayno oo nidhaahdo ninka ugu taajirsan bisha 30 ha bixiyo waa habeen walba 1 shilin kii aan karaynin ee indhaale dawrsanayeen awood ba lahayn 30 cisho 1 shilin ha bixiyo militariga iyo booliska iyo askartana iyo dhaqdaraduna 30 cisho ninkiiba mushaharaysa 1 shilin waa koob shaaha ka bixiyo ya de 40 kun qof kama yirine 20 kun haddaanu helno habeen qura waa 20 malyan de waa sax weeye yani inaad yarahay fiishakay halkaas u socda kolkaana de ninkii wax istaa wax lagu daraaye de dawladuna dadka ka mas'uulahay haddaan inta hal iibeen mashruuca kale maskaxda ku haysaa nimka kan qalax marka laga tago maxaa kale miiskeenii yaala kan qalax marka laga tago kan qalax marka laga tago de waxa baan leenahay ummadda haddii alla yiraahdo sare si ay ugu kici lahayd waa la isku imanaya kolkaan wax ururinaba aqli aanu dadka ku baarano ay ilaahay nasiiyay waxaan odhanaynaa waxa jira mid aad u ka xaragoonayso iska maryaxun oo dadka ilaahayga wuxuu tusaa markaan wax ururinaba iyaga u yeero oo dhaha waxa saan walaagid ka ururin dawladdiina waxa ay idinku dartay qurba joogtina waxa ay idinku dartay transparency bal waxa idinku muhiimsanay dan guud dad shakhsi anagu shaqo kuma leeyin ya dan guud waxa bal ka soo fikiro la kaalay okay marka dadku waxay isku qaadaan ee loo geliyo waxoodii anagu ma lihin waayahay hawlahan samafalkee la wadaa hadii biid maayo iyo maaragtay lacag la ururinayo iyo hawlo lagu qabanaya way hadal badan tahay oo dib badan tahay waaye marka dadka hadii biid maayo wixii aad gashataan un bay niga soo mid noqdeen kuwa qaloocan ma jiraan oo inay aflagaadiyo oo magacyeyni bixiyo oo hadii biid maayo inay jiriya ma jiraan daf aqal baanu ka dhisnay aqal ayaan u dhisnay aqalkaasoo shilinka reer gabiilay lagu dhisay inuu meel kale uga iman waa aqalka quriga ku yaala gabiilay ama Soomaaliyeed shicibku wada leeyay inuu qolo iyo ficiis iyo futuud waxa la tiriyo aan midna ku jirin umadu wada leedahay ka dhalan iyo kii dhashay iyo ka xabala ku jira marka qaar baa laga sheegay kuwana ku ka shirin meel gaarsiin maayaane talow yaa u haraya aqal maqsinkan iyada xagga wanaag farista halkan Hargeysa guddi cajiib qabta ayaa jirto dadka xumahana ka reebta wanaagana farta marka shaqadiinu halka miyay gashaa oo dadkii hadii biid maayeen ku dhex jiro cid walba uga dhow in dhageysanayaan xumaantii ma ka reebtaan oo wanaagii ma fartaan mise arrinka culimada u deysay culimadan u deyno ni Sheekh Xasan la yiraahdo halka miskiidka tuuyo aan jeeneerna oo diintana ku wanaagsan imaamna miskiidka ugu weyn gabiilay ka iyo guddi sameeyay marka guddidiisa ya baabuur nale
kuwaasaa wanaag farista ku qaybsan marka waxba gashataan baabuurka oo shidaalka ma ka bixisaan oo bilmetalba mise way isku filan yihiin ma way isku filan yihiin iyaga isku filan organisation anagu dan shakhsi shuqul kuma lihin dan shakhsi anagu wax dan shakhsi waxaan ogaaday inaanu baaba'ayno hadduu midkaayo $100 ka qaato waayahay markaad soo shaqaynaysay hawshan soo waday ilaa 2002 ilaa 2006 baanu bilownay halkan 25 bishii koowaad 2006 yaanu bilownay samaka marka maxaa carqalad la kulanteen dad afxumu jira haye laakiin ma badna gacanta laynigama yimaado haye dadku inta badan waa inuu ogolyihiin warka kunka ururinayno wixii wax fahmay oo dhami kolkaasay oranayaan inkaar baan idinku ognay maxaad xalay kun ka waraabsanteen in looga qaadi weyde idinka ababa layna qabsanayaa waa dad sidaa u fiican waayahay markaad habeenkii sii seexanayso ee aad bilmetalba wixii aad bilowday ay halkaa gaadhay bilmetalbaba mashaariicdaas ay ka dhasheen sideed markaa haddii dareenkaagu noqdaa markaad keligaas la shurta alxamdulilah baan ilaahay waxaan u arkaa waxaan anigu wada maahee dee nin quri adba nin waliba iska fahmaya inaan nin quri hindisa fiican wuu keeni karaa laakiin waxa iga fiican dhalinyarta fulisay ee waxaan waday gacanta i siisay keligay ma fulin karo rag tijaar oo xoolalo aniga ay xoolo dhaama oo weliba ay garaad dhaama ayaa fuliyey dee marka farkadii fool ma dhaqdo laakiin se asalkaaga ra'yigii ka soo bilaabmay halkii hayun baan ahay markaad istaagto فرح ما كو جلسان فرح وين بي جلسان وانا دعي هذا اوكي دعي قدعدا لا كون نحرسان الى هذا واي هي دعيت امك كو داوانيسا دي بين مايو waxay oran kartaa hadii biin maayo haliyey ibraahim dadkii maaragtay reer Hargeysa ee asalka ahaa kan ku dhashay Djibouti tagay adeerkii gacan qabtay iskuuladii Faransiiska galay Tunisia loo diray baasaboorkii Faransiiska qaatay fursadda helay anagu fursadda ma lihin waxna ma ixtiraaqi karno waxna ma dhageysanayaan inna ma dhageysanayaan marka maxaad u sheegaysaa kuwaasi adiga ku oranayo waa la soo gacan qabtay oo sidan la siiyay maxaad ku oranaysaa hadii biin maayo iyaga waxaan ku oranayaa mahmaaba jirto ururaan dadku u dhamaynin ma dhaqaaqo marka dadka Soomaaliyeed u dhashay ama Soomaalidaba isku tiirsadaan oran lahaanu isku tiirsada oo ha fahminuun inay dawladdu ha sugina ya dawladdu ha sugina isku tiirsada si dawladdiina u gacan qabataan idina dad u noqotaan da'yartayna da isku tiirsada oo urur sameeyo oo dawladuna idin gargaariye idinkuna gargaar la kaalayaan leh oo dhan wada jeeda alxamdulillah oo ku maqlayaan inay ka qaataan ma rajeynaya anigu Mareykan anigoo yar baan tagay waaye laba arrimaan la yaabay waaye waxaan la yaabay sida maaragtay dadku ay cashuurta u ururinayaan wax loogu qabanayo waaye ay maaragtay wixii ay bixiyaan wax loogu sameeyay arkayaan waaye ya waaye iyo 200 milyan oo qof oo Mareykan uu walaaba doonaya adduunkan soo shaqadiisii wata inuu wax ku soo kordhiyo ama day xaga macad ha sameeyo ama taangi duulaya ha sameeyo qof walaaba mashruuc iyo hindise u gaara ayuu leeyahay waarun marka in hamiga iyo qamiga la yimaado oo dawladdiina wax la gashado dawladdiina ay tusto wixii ay qabatay oo kalsooni timaada ayay u sheeginaa marka maxaad ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa maalinkan maanta war xumahan dhan uga soo wada jeeda oo xumaha cad u wada noqda oo iska qabta wixii xun wanaagana dhan ugu wada jeeda oo isku tiirsada qabyaalada iyo jirib iyo waxno ilaa xawi aadan bas waxba ku gaari weyday ee dhaqaalaha u soo jeestaan idin leh okay marka samakaal adaa ka gudoomiyaa imaka waxa ka gudoomiyaa maye anu odagii aasaasay un baan founderkii baan inaan kaysa xaaji musallayda ayaan u dooran oo maalinkan maanta waan ku sidaatay
samakaal oo dhan iyo waynu eegi doonaaye marka ma isleedahay haddii caawa taadii noqoto wadadaasay sii haynaysaa ma isleedahay waan isleeyahay kiyaad sheexday ma lagu taagnaanayaa baad isleedahay sidaasaan ilaahay baryaya dee laa yacrifu lqayb ila allah waxaa imanaya ilaahay takrifarkiisii weeyaan oo nin ilahay wax ka sheegayaan noqonaya haddaan wax ka sheego laakiin ilaahay waxaan baryayaa inay maalinkan maanta oo halkan ay Soomaalidu nin iyo kabihii way israacaan in wixii la sii wado oo la sii kordhiyo la sii ballaariyo okay marka suuqa marayso ama masaajidada aad ku tukanayso dadkii maskaxda ka jiranaayay ladnaaday ee soo baxay ma ku soo dhaweeyaan oo ma ku salaamaan ama dadkoodii ma kuugu duceeyaan oo taasi farax ma ku gelisaa farax weyn bay gelisay xoog bay geliso inaan ka mid ahoo dadka xaafadayda gale ee de xanuunsanayay ayaaba beri ifeerfeeray jibriil baa la yidhaha magaciisa markaasaan de iska sabab waxaan jibriil magaciisaan u sheegto adna jibriil baa lagu yidhaa anigana jibriil dee dadku waa ista jiirayaan la odhane ina kala jooji baan idhi kolkaas iga joojiyo dee dhakhtarkii baanu geyno ilaahay baa soo ladnaysiiyey markuu iminka soo baxo soo bogsaduu ii yimo berigeedii camaysay waan garanayaabee tii adigoon jibriil laga odhan jibriil baa anigaa la yidhaa waayahay inagoo soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxaanu kuugu ducaynaynaa inaga iyo tiimka inila shaqeeyaba samakaal inaad hawshaa sii wadaan oo ilaahay inula barbar qabto anaguna dadka noocii naasa adig iyo xasan iyo dadka kale ee la midka ayaanu rabnaa inaanu wadanka dadka usoo bandhigno lagu daydo oo waxa weeye adduunkan rag iyo dumar unbaa dhisay oo dhibta iyo abaaraha iyo kareedkayna haysta dad unbaa saara oo ilaahay malaa'ig markuu doono wuu soo diraa laakiinse inagu inagu itixaamaya adduunkan inaynu camirno oo hablaha guursano oo nin walaaba 4 hablood guursado ubadkeenu bato ganacsigeenu bato fikirkeenu bato dadkeenu bato ayaa laynaga doonayaa maaha intaynu qaad $100 intaynu qaadano aynu gidaar fadhiisano oo waxaasaan ahaan jiray sidaasaan ahaan jiray in laga sheekeeyo maaha in maskaxdiina laga faa'iideysto weeye sida awgeedna ayaanu garanay inaanu ku siino jaaysada arintaa ku lug leh oo insha Allah aanu leenahay ilaahay cimrigiisa khayr ugu khaat